bulshada ciisigeeda iyo waxaa tahay ciidankay carruurtiyo hooyadiyo cirooluhu duganayaan calanyaho bulshada ciisigeeda iyo waxaa tahay ciidankay carruurtiyo hooyadiyo cirooluhu duganayaan calanyaho habeenkaad quradsaye lagu soo cana shubay ciidda kumaada naqdo codeer baa lagugu yidhi hawada sare cadka joog habeenkaad quradsaye lagu soo cana shubay ciidda kumaada naqdo codeer baa lagugu yidhi hawada sare cadka joog hirshabelle cawaadu tahay calanyaho hirshabelle cadaalad iyo cuudiya nabad baad u tahay cawana farxadda camiran calaamad saxaad u tahay calanyaho hirshabelle cawaadu tahay calanyaho hirshabelle cadaalad iyo cuudiya nabad baad u tahay cawana farxadda camiran calaamad saxaad u tahay calanyaho isiya sharaf uga duldhulo cawaalow jawhar iyo masaajidka caligeeduud warshiiqu dulcaanamaal calanyaho isiya sharaf uga duldhulo cawaalow jawhar iyo masaajidka caligeeduud warshiiqu dulcaanamaal calanyaho colaadamiya tahe ciyaar hawada burdacar cududi balad weyne iyo ciidamihii gulano cirka ku jira cabaar calanyaho colaadamiya tahe ciyaar hawada burdacad cududi balad weyne iyo ciidamihii gulano cirka ku jira cabaar calanyaho hirshabelle cawaadu tahay calanyaho hirshabelle cadaalad iyo cuudiya nabad baad u tahay cawana farxadda camiran calaamad saxaad u tahay calanyaho hirshabelle cawaadu tahay calanyaho hirshabelle cadaalad iyo cuudiya nabad baad u tahay cawana farxadda camiran calaamad saxaad u tahay calanyaho habeen wanaagsan habeenada ka duwan habeenkii hirshabelle waxaan doonayaa xafladda inaan hadda si rasmi ah u bilowno inagoo caawa iskugu nimid inaynu u dabaaldegno sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka hirshabelle ha loo soo cabtumo xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan waxaan doonaynaa inaan idiin soo gudbiyo salaan qiimo badan oo ka timid madaxweynaha maamulka hirshabelle madaxweyne cali guudlaawe xuseen
madaxweyne ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin luqmaan intaasuba waxay idin leeyihiin maanta idinkoo ku sugan waqooyiga maraykanka naga guddooma salaan qiimo iyo qaayo badan oo ay doonayaan inay hadhowna ay dheehdaan sida quruxda badan eed caawa ugu dabaaldegaysaan sanad guradii 8aad ee ka soo wareegtay caawa dhismaha maamulka Hirshabelle fanaaniinta aan filaya caawa inkastuu boqorkeennii waa beri inoo joogo oon xusayno mar kasta ammaan iyo sharaf uu naga midan yahay haddana fanaaniinta kale ee caawa shiri doona waxaa ka mid ah fanaanada codka macaan hodan cabdiraxmaan dheere mataankeeda mursal muuse cabdullaahi baajiyo aqil yare dhanka buraanburkana haakaha baan ka dhihi doonaa oo waxay noo buraanburi doontaa caasha buraanburtey iyo umul suleekho buraanburtey labaduba nin la yidhaahda deeq darajo ood wada taqaanaan baa ii gabaday ani deeq darajo markaan baranayay dadku waxaan ku aqaanay jungle iyo titinkian ku orinta laakiin caawa shaati kaloo la soo baxay british may taqaanaa war shiikhaa ka imaad ku baxa yaa ree war shiikhaa waxaaba ka sii daran haddana kulaha dhanka kale iga fiiri naasko jalalaqsina iga fiiri jalalaqsi oo waaba Hirshabelle loo socday waraallo sheekhow maalin dambe kugu xisaabintay maay waaye intaas way gaftan marka haddaba deeqow si rasmi ah u bilaabaynaaye mar kale habeen wanaagsan oo wacan waa habeen ka duwan haweenada waa habeenkii Hirshabelle hubaal Hirshabelle horumar iyo hiigsiga ku talaabsatay ladaan iyo sanad guurida Hirshabelle inaan ka hambaliyayo xaqiiqatan kulay warbixino iyo hadal odayaal iga dambeey doono marka mar raba inaan hadal ku dheeraado kaliya waxaan rabaa inaan warbixinada ka siiyo xafladan iyo dadkii soo agaasimay oo magacooda halkan ka xuso maxaa la dhahay moogtahay ii sheeg waxaa la dhahay waxaan rabaa khaasatan hadda guddiga shaqada xooggeeda waxaa hayay gabdho laba gabar aad taqaaniinaa jirto inkastoo hadda aysan ii muuqan weli ay soo gelin laakiin waxa sarabka dhan diyaariyey iyo maxaa la dhahaa cunadaas halkaas ka muuqato waa deeqa abuukar iyo sahre axmed oo ganacsato ah waxaa rabaa inaad u sacbisaan markaa aragtaanna iyo meeshaa ku aragtaanna isaga ku salaantaan oo fadhiga ku salaamina marka aani maxaa la dhahaa mar kale sacabka ugu celiyo horta sacabka ma xoogano sacabka maxaa dhacay siya deeqa abuukar iyo sahre axmed ugu celiyo aada u mahadsantihiin yaa ka tegin oonan iska ilaabin gabadhaa wada taqaanaana jirto oo door aad muhiim ugu ciyaarta xaqiiqatan oo reer karmeel ah suuqa business ku leh gabdhahaasna business ay suuqa ku leeyihiin laftirkooda madiina muudey waa gabar oo 10 rag u dhiganta waaye marka gabar waxa waaye gobaha waaye xafladan waqti badan gelisay juhdi gelisay iyagana u mahad celinaa waxaa kaloo u mahad celin lahaa xaqiiqatan dhammaan dadkiinan waqtigooda qiimaha lana siiyey fursad noo siiyey inay halkaan noogu yimaadaan nagala qayb galaan waxaan u malaynayaa dadka madaxaa furan cawada qulubtuna furan yihiin marka ma u malaynaya hadal badan in meeshan laga rabo laakiin soo dhawaada mar koowaad mar labaad mar saddexaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee sanad guurida 8aad ee Hirshabelle ee caawa halkan aan ku xusayno jaaliyadda Hirshabelle iyo jaaliyadda Soomaaliyeed quruxda badan ee caawa ka soo qayb gashay xafladan waa mahadsantihiin walaalihii soo agaasimay oo rag iyo dumar ahaana ayagana waa mahadsanyihiin oo nagu casuumay naguna sharfay intaa ka bacdi waxaan leeyahay Hirshabelle horumar bashbash iyo barwaaqo aan ilaahay ugu rajaynayo ee Soomaaliya oo dhan anoo waqtigay ka faa'iideysanayo insha Allah waxaan rabaa in halkan aan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo reer Hirshabelle oo dhan iyo madaxweyne Cali Guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa Axmed Hagar Axmed Dabageed iyo ninka la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka intaba marka intaa ka bacdi hadal badan haan ma buuxiyo waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin soo jiibitaanka aad soo ajiibteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan ee Hirshabelle sanad guuradii 8aad
dhammaan intii qabanqaabisay oo soo qabanqaabisay hawshan 114 waa salaamaya dabageed iyo cali guudlaawe waa madaxda Hirshabeelle uguna waaya aragsan xagga khibradda markii la yiraahdo ma aha aqoon-yahan waa niman khibrad u leh siyaasadda intii burburka oo dhan ku soo jiray marka hadhihina waa aqoon-yahan bas inuu wax wadi karo nimankan waxay leeyihiin khibrad bay leeyihiin ayadana waa ka sugaynaa laakiin wixii anu xoogaal baan ahay meeshii lugaha laga hayo waa la socdaa waxay ahayd al-shabaabkiina hadda waa laga raayay hadda wixii ka dambeeyo Hirshabeelle waxay noqon doontaa gobolada ama isteediyada caawimada bixiyo oo isteediyada kala siiyo Soomaaliya wax waaye Soomaaliya labada isteed ee ugu waxaysan waa labada ugu liidata hadda markii la wax soo saarka waa Jubbaland iyo Hirshabeelle waa labada ugu dhaqaalaha badan wax kasto dhaqaale ku jiraana dhibkeeday leedahay marka horta taas ogaada nimankan wax ma qaban waa in dhibkeeday leedahay meesha ku haya lugaha la haystaa waxa kale oo rabaa anigoo ku hadlayo magaca odayaasha Minnesota ee halkan joogo iyo dad kale oo maqan magacooda anoo ku hadlayo waxaan rabaa inaan maaragtay aan uga faa'iideysto hawshan hadda meesha ka socoto in sida ay tahay oo maanta ay hawshu tahay anigu hadda dhowaan waxaan ka imiday Soomaaliya haddaan wax yar idinka taabto Soomaaliya intii sano ee jirtay 30 sano waa sanadkay ugu fiican tahay way Soomaaliya waa sanadkay ugu fiican tahay way ha u malaynina waxa la sheegayo dhan waxba kama jiraan ceel bishidaal baa noo qodan maraakiib baa timid hadda waa noqonaynaa dhamaanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay sanad guuradii 8aad ee Hirshabeelle ilaahay barwaaqeeyo waa ku faraxsanahay xoogahan waa iska yara xanuunsanahay laakiin haddana saaxiibkay gurey waa ka soo hari waayey markii uu Hirshabeelle u soo socday isagaa dalkiisa aanu imilay marka waa ku faraxsanahay insha allah ilaahay barwaaqeeyo Hirshabeelle waxaan xasuusanahay warshadii wanaagsaneed ee sonkorta jawhar meel mid uma jirin yaa marka ma sha Allah marka waa qayb weyn ay qaadatay haddana ilaahay idinkiis waxay noqon doontaa gobolka ugu fiican uu noqon doonaa haddana aan rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بلد خيرة بستان راحة وقارة بريا وبيدا كعانة طريقا بابا أيلة الشبل بلد كيد الحسكة وفكي بوق بيبا وحيسة دول بركة بلد خيرة بستان راحة وقارة بريا وبيدا كعانة طريقا بابا أيلة الشبل بلد كيد الحسكة وفكي بوق بيبا وحيسة bulshada Soomaaliyeed hablaha ugu quruxda badan dhulkii laga beerayay eerlula lagu soo arkiyo halkay belad weyn ku taal indhihii bogashada qabta dhaqsay u bogsoonayaan bulshada Soomaaliyeed hablaha ugu quruxda badan dhulkii laga beerayay eerlula lagu soo arkiyo halkay belad weyn ku taal indhihii bogashada qabta dhaqsay u bogsoonayaan goobtii warshiiqiyo jawhar boqortooyadii boqorku ku abuurayba
soorka mataban lagu baqriyo bulshada Hirshabeelle degtan wanaag lala baratamay goobtii warshiiqiyo jawhar boqortooyadii boqorku ku abuurayba bariidiyo soo dhaweyn bahadii marti soorka mataban lagu baqriyo bulshada Hirshabeelle degtan wanaag lala baratamay beydkii nabade oygii bahweynta dadyow isku beerfiyowa beliyo hayb aqoonin dariiqan baaba'ayn leh Hirshabeelle baladkii dalxiiska qofkii booqday baa u xiisa beydkii nabade oygii bahweynta dadyow isku beerfiyowa beliyo hayb aqoonin dariiqan baaba'ayn leh Hirshabeelle baladkii dalxiiska qofkii booqday baa u xiisa ciidaada qofkii bartee biyaha jalalaqsi cabee geedkii baar hoos dhegee badhaadhe ku ciidayo barxadda moqokori marmara ayaan udugeeda badan dunida ku beddelan karay ciidaada qofkii bartee biyaha jalalaqsi cabee geedkii baar hoos dhegee badhaadhe ku ciidayo barxadda moqokori marmara ayaan udugeeda badan dunida ku beddelan karay goobtii guuleenayo wargaandhi boqortooyadii boqorku ku abuurayba bariidiyo soo dhaweyn bahadii marti soorka balad weyn lagu baqriyo bulshada Hirshabeelle degtan wanaag lala baratamay goobtii guuleenayo wargaandhi boqortooyadii boqorku ku abuurayba bariidiyo soo dhaweyn bahadii marti soorka balad weyn lagu baqriyo bulshada Hirshabeelle degtan wanaag lala baratamay waxaan rabaa aniga inaan fariimo badan diro fariimahaas fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro aan ka hormarinayo salaan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe sida aan ognahay Hirshabeelle waa maamulkii ugu horeeyay si baaxad leh ula dagaalamay ururka argagixisada al-shabaab kana sifeeyay meelo badan waxaan ognahay in meelo badan ay xur tahay oo waliba haddana intaas aan lagu ekaynin la inoo sameeyey degmooyin dadkooda ay soo dooranayaan taasi waxaa ku mahadleh madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ku-xigeenkiisa iyo dhammaan dadka la shaqeeyo oo kala duwan waxaan rabaa Soomaaliyeed inaan idin sheego qofka Soomaaliga wiilka Soomaaliga markuu guursanayo wuxuu jecel yahay inuu guursado gabar qurux badan wanaagsan dhageysata u dhaqanta gabadha Soomaaliyeed markay guursanayso sidoo kale waxay jeceshahay wiil wanaagsan oo sharaf leh inay guursato aabbaha iyo hooyadu waxay jecel yihiin caruur wanaagsan oo waxtar leh inay dhalaan jecel yihiin marka maxaa inoo diiday haddii in qof walba uu jecel yahay wax wanaagsan in dalkeena aan quruxsanno Soomaalinimada ay naga badnaato qabyaaladan oo 30 sano na daba haysay wax guulna aanan ku gaarin inaan iska dayno Soomaaliyeed maxaa inoo diiday waxaan ognahay maamul goboleedyada madaxweynayaasha ama dadka hoggaanka inoo haayo
mar walba waxaa lagu eedeeya inaysan wax qabanin laakiin haddana lama fiiriyo ma jirto maamul waqti loo siiyey in wax lagula xisaabtama la gaarsiiyo maalinkii maamulka la sameeyo mucaarada ayaa lagu bilaabayaa hadday qabyaalad noqoto hadday nooc kaleeto noqoto haddana waxaa laga shaqaynayaa in wixii dowladnimadii ay fashilanto qofkaas haddana wuxuu ku leeyahay qofkii waxba ma qabanin qofka sida hadda anaga dunida aan joogno aan ka arkayno waxaa lala xisaabtamaa markii waqti loo siiyo inuu wax qabto laakiin Soomaaliya waxaa ka jirto maalinkii qofka la doorto sida looga daba qaato oo dhinac walba loogu juqjuqeynaayo qof walba wuxuu ka shaqaynayaa inuu wixii fashilmo hadhowtan waa lagu eedeynayaa dhibaatada kuwaad wadna haysata waay midda labaad maamulka Hirshabeelle waa maamulka Soomaalidan ay u dhan tahay sida aan wada ognahay adduunka qof ka adkaani kara ma jirto qabiil ka adkaani karana ma jirto waxaan ognahay Falastiin Gaza 60 kilometer wide adduunka waxa hub yaala lagu barooway ilaa hadda laga adkaaday ma jirto Soomaali kala adkaani karto marka haddaan la kala adkaani karin waa in la is ogolaadaa wax la wada leeyahay aan wada samaysanaa sida hadda Mareykanka qof walba naga mid ah uu gaari u soo qaatay asagoo nabad iyo xasillooni dareemayo bakin uu soo gastay xafladan uga soo qaybgalay waa inaan u ogolaanaa dadka dalka joogo in sida annaga aan u raaxaysanayna ay u raaxaystaan taasna waxaa lagu heli karaa midnimo iyo Soomaalinimo iyo isku duubnaan ayaa lagu heli karaa ma jirto qof kaligii guuleysan karo ma jirto qabiil kaligii guuleysan karo ma jirto xaafad kaligeeda guuleysan karo annaga oo Soomaali ah ayaa wada guuleysan karnaa marka ugu dambeyn waxaan rabaa maadaama waqtigu uu gaaban yahay inaan khudbadeeda ku soo gabagabeeyo fariintaan u diraayo maamulka Hirshabeelle uu madaxweynaha ugu horeeyo waxaan ognahay dhammaan maamul goboleedyada hadda in waqtigooda uu ka dhamaaday waxaan leeyahay madaxweyne shacabka way ku taageersan yihiin waxaan ognahay inaad wax badan qabatay waxa dalka inoo gaarsiisaa one man one vote hana noqonin nin fulay ah noqonin geesi ah waqtigiisa doorasho ku qabtay Soomaalina ay wada jeceshahay lagasina ka tago salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
mahadsantihiin xafladdan quruxda badan ee loogu dabaaldegayo maasha allah hirshabeelle maasha allah هلا أنا هذا كعنينا وكعنينا ما شاء الله ما شاء الله وإذا سلامينا هرشبيل وأودو عينينا وحلنا هقول ما شاء الله الله النبدايو ده عدي تقانا هرشبيل عاوة سوي وجد بيسنتهايو ما شاء الله وبيجي إيو بيره إيو ما شاء الله بليدي إيو حريدي إيو قدارتي إيو قف كان أقول لكن تلمان كانوا إسكا قبسنا إياه لكن أنا جوهر بنصو أركي ما شاء الله وبيجي تشينكيسة مركا ما شاء الله وحلايا برواقة الله وبركايه قول بان لنا هو كفر أحسننا هاي مالكستو أنشوجنو ده وحن أوضع كله أنا قلنا نقول بعيسانتي عيل كم باليري ومسلاقي هل حبوا برام برأي قبل بان أوضع محل ده هاي الشبيلة وربرنامج كان عوائيه باق الله اسكيمت برنامج كان عوائيه باق الله اسكيمت بندق حفلة النبيسين كانوا قابانيا برنامج كان عوائيه باق الله اسكيمت بندق حفلة النبيسين كانوا قابانيا برشيغا هيرشابي إلا على عنكي هدو بابادي برشيغا هيرشابي إلا على عنكي هدو بابادي بلشادا وادا دي قيعي برواقتاهي بلشادا وادا دي قيعي برواقتاهي وبيغو برقانا هيا او بيرهي بحين بوغو برقانا هيا او بيرهي بحين بلايا دا يا الله او باسكا ايدنك هاي علومي عقاشي عرور إيا عرولبا ساداشا وعن إيو سند قوردان تمت هيرشابيلا سارتين علن كاسمدة تغي ربي يو سمادة جيل علومي عقاشي عرور إيا عرولبا ساداشا وعن إيو سند قوردان تمت هيرشابيلا سارتين علن كان سمدة تغي sama inuu ku waaraan saadirkay warsanaya hambalyaan ku soore kulligiin u sacabtuma weligiis inuu sido bal muslaaqay adigana maxaad ka leedahay ما شاء الله تبارك الله همبليان لنا هاي هيرشابيل ما شاء الله مقعاب إدليبة ما شاء الله قروح هيرشابيل وحن لنا هاي ومعمول قبلات ما شاء الله مدحوينه هذا علي جود لاو حسين ما شاء الله iyo baarlamaanka oo ah dabageed ma sha Allah ilaahay ha barakeeyaan lana anaga reer Hirshabeellaana waliga Hirshabeelle hadaan arkin horta ayaan daraaba ku haysato jawhar balcad mahaday caliyaale cadale hiiraan dhax istaag buulay buula burte matabaan jawiil waliga ma tagtay jalaqs waa maya malaha dadkii 90 ga dhashaa meesha fadhiya show ما شاء الله دمر كنا وابدأ نعبيهين لبعتنا هايست لكن ما شاء الله أنا قوى أرقنا برواقة هاس هيرشابيل لقفكي كسو كرا قرن كرو مال وبيا لي هيران بالقف هيران كي متكشاكي وهير يا شابيل والله اسكت دروا ساسوا برنامج ما شاء الله لنا عاشوي أنا قوى حنكوت الماما يا هيرشابيل وحق برواقة هذا تأذو كيمت دولت كهيرشابيل لباهان كودل مراهيا دولت كهيرشابيل لباهان كودل مراهيا ودوغا إيا وبيحي إنديه دران دارين ودوغا إيا وبيحي إنديه دران دارين دالغا بيراهو ودوابيغي دردوراهيان داقسينتا إيا حوليه جيلو داقيان داقسينكا إيا حوليه جيلو داقيان
dagaan lagu diirsado daawo laga helaa dagaan lagu diirsado daawo laga helaa dalxiis ha loo aada hirshabeelle dacal walbaba waa dalxiisi kartaa baan malaynaya haddaad rabto inaad tagto madaxda hirshabeelle caliba umuunad badan madaxda hirshabeelle caliba umuunad badan meeqaanka iyo sharafta mas-uulkiisu waa dhan yahay maamulka iyo sharafta tihiisana miidan tahay musbaax weeyaane hirshabeelle meel walbaba mustaqbalkoo idilna maqsuud baana lagaba yahay maasha allahu ya allahow meel sarana taga cali guudlaa waa haddana u dhacaya madaxweynahan ammaanaynaa oo cali maamulkiisa mas-uulkiisu waa mid waacan war cali maamulkiisa mas-uulkiisu waa mid waacan madaxda hirshabeelle weheeyoon la maagi karin madaxda hirshabeelle rag muhiimabaa ku jira meeqaanka iyo sharafta magacoodu waa mid sare dadkuna waa midaysan yahay meel kastooy degaan dadkuna waa midaysan yahay meel kastoo la dayo gudaha iyo dibadda waa loo dabaaldegaa diyaar baanu wadanahe hirshabeelle dayaa ha lagu dayo hirshabeelle ha lagu daydo cali guudlaa waa hormuudkiisu waa mid sare war cali guudlaa waa hormuudkiisu waa mid sare oo hawsha uu marayna hirshabeelle haldooraha lama hilmaamaya taariikhdu waa mid huban lama hilmaamaya taariikhdu waa mid huban halyey weeyaane cali waana heer saraa waa madaxweyne la hubo waxaan kaloo halkaan uga hambalyaynaynaa annagoo abwaano ah gabdho waxaa jirta maamulkan hormuud u ahaa oo annagana soo casumay oo meesha ay joogaanna ka muuqdaan waa sahre maxamed beer iyo deeqo abuukar maasha allah hirshabeelle gabdho fiican ay qabaan caashooy waa gabdhaha lagu hirto maasha allah madaxa aan ku nimidna annaga haddaan runta sheegno waa gabdhahaas madaxooda oo gabdho wanaagsana soomaalina ah oo international ah maasha allah gabadha saddexaad oo raacinayna waxaa waa madiina muudey madiina ma seexan madiina muudey maasha allah waa gabar ayadana maasha allah gabdhaha hirshabeelle iyo annagoo dhan iyo adinkoo dhan iyo wiilashoo dhan dhammaantiinna maxaa idin leenahay hambalyo maasha allah hadal yar iyo howl badan waxaa weeye waxaan muhad celinayaa dadka xafladda soo qabanqaabiyey salaad derbi waa ku salaamay bilovi waa ku jecelnahay iyo muusishanada soo socdo ee ugu weyntahay hodan duwaashadayna waxaan idiin sheegayaa soomaaliya dhibaatada aan qabno oo na soo gaartay waxa waaye oo na kala qaybiyey qabyaalad dad wada dhashaan nahay walaaltinimada ha lagu dadaalo ilaahay wuxuu leeyahay wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu aan isku duubnaano aan iswalaashano cadow badan baan qabnaa cadowga waxaa noogu daray etoobiya oo maanta dhulka inay qaata rabaan kala fiirnaanta ma wanaagsano dowladda ha isla shaqeeyaan compromise wax laysu dhibriyo waxaan kula talinayaa hirshabeelle in particular waxaa ilaahay ku barwaaqeeyey wax kasta oo nimco way haystaan webigii bay leeyihiin baddii bay leeyihiin waxay leeyihiin wax kasta beerihii bay leeyihiin faktoriyadii jiri jiray ay sokorta ugu horreyso ha la soo celiyo tii barcad oo dharka ha la soo celiyo ha la iswalaashado dadka inta joogo waxaa laga rabaa inay la xiriiraan madaxda waddanka joogo si loo walaabaloobi lahay waa mahadsantiin waanay sharafteen allah idin sharaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhulka hooyo show kala haybadle inay had iyo goor hirshabeelle tahay halkay taal nimcadu aniga hubay gobta aan la hurin hambalyaa ku yidhi
gobta aan la hurin hambalyaan ku yidhi dhulka hooyo show kala haybad leh inay had iyo goor hirshabeelle tahay halkay taal nimcadu aniga hubey gobta aan la hurin hambalyaan ku yidhi gobta aan la hurin hambalyaan ku yidhi hoygii beeraheed lagu hiran jiriyo waa halkii nimcada laga heli jiray oo ba'anta taallana lama huri kari hirshabeelle sow hantimaha qaran hirshabeelle sow hantimaha qaran hoygii beeraheed lagu hiran jiriyo waa halkii nimcada laga heli jiray oo ba'anta taallana lama huri kari hirshabeelle sow hantimaha qaran hirshabeelle sow hantimaha qaran hersariya farxad ateshidee hobiyay jooreebsagoo barmago ku hiro hobiyay barcad halacso oo bulay ku hako hobiyay caligadu tabeen roobda ay ku qoyo hobiyay hareeraha maxaa salmar soo jalleexo mahaday hobiyay eelada ku tumo mahaday hubiyay eelada ku tumo jawi hersariya farxad ateshidee hubiyay jawar heebsa oo barmago ku hiro hubiyay barcad halacso oo bulay ku hako hubiyay caligadu tabeen roobda ay ku hoyo hareeraha maxaa salmar soo jalleexo mahaday hubiyay eelada ku tumo mahaday hubiyay eelada ku tumo hablo وروح لك غدنا السيامان مدن hirshabeelle laga qeela ودي نسيبي وعيالو بقول غلط استاقلا اللي عندنا خلوه يدير hirshabeelle كوحانا باللي عندنا خلوه يدير hirshabeelle كوحانا hablo waqano وروح لك غدنا السيامان مد hirshabeelle laga qeela ودي نسيبي وعيالو بقول غلط استاقلا باللي عندنا خلوه يدير hirshabeelle كوحانا باللي عندنا خلوه يدير hirshabeelle كوحانا عليو تاريخ له dalka u soo hangamay uu naftooda quro xurriyadda horseeday geesiyaal howgeegano cadowgana hortaagan habeniyo maalin jiifan hirshabeelle laga hela habeniyo maalin jiifan hirshabeelle laga hela
halyeeyo taariikh loo dalka u soo halgamay oo naftooda quro xurriyadda horseeday geesiyaal u weegano cadowgana hortaagan habeeniyo maalin jiifan hirshabeella laga hela habeeniyo maalin jiifan hirshabeella laga hela heersariya farxad ateshide obeeyay cadala iibsado beled way ku jiro obeeyay jawil halacsa oo adan yabal ku qako obeeyay halkan habeen roobda ay ku hoyo obeeyay hareerahaanu nirgood halmar soo jalle obeeyay meelada ku tumo aburey hubiyay meelada ku tumo jawi heersariya farxad ateshide hubiyay cadal iibsado beled way ku jiro hubiyay jawi halacsa oo adan yaba ku hako hubiyay halkan habeen roobda ay ku hoyo obeeyay hareerahaanu nirgood halmar soo jalle abuurey obeeyay meelada ku tumo abuurey obeeyay meelada ku tumo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waa salaamay marti sharafka meeshaas ugu imaadeen magac walba iyo maqaan walba ay ku jeegaan hadal badan ma dhahay anigoo ka hadlayo magaca elected officialka Minnesota also walaalkay Cabdullaahi wuu joogay wuu xanuunsaday wuu baxay waxaan leeyahay hambalyo Hirshabeelle sanad guuradii 8aad waxaan leeyahay dhamaantiin soo dhawaada waa mahadsantiin marka hore waa salaamantihiin waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xalfadan sanad guuradii 8aad ee reer Hirshabeelle waa taageersannahay insha Allah magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed waxaan rabaa inaan ka hadlo reer Hiiraan iyo taariikhda ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliyeed waa dadkii ugu horeeyay Cabdullaahi Ciise oo ninka ugu horeeyay aabihii maxaa la dhahaa siyaasadda Soomaaliyeed ee xorriyadda oo dhaliyay waa Cabdullaahi Ciise madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Cabdullaahi Cismaan Aadan Cadde asagana wuxuu ahaa reer Hiiraan waa la soconnaa siyaasigii ugu tun weynaa Cali Jimcaale wuxuu ka soo jeedaa reer Hiiraan aniga Kismaayaan ku dhashay reer Hiiraan iyo reer Kismaayo waxaa ka dhaxeeyo maxaa la dhahaa dhanka nabadda way nabad jecel yihiin dad nabad jecel waay aniga waxaan u sharaxanahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya 2026 waxaan rabaa inaan isbeddelka cusub ee Soomaaliya waxaan rabaa inaad ka qayb qaadatiin oo waddanka aad badbaadino waxaana tihiin dadkii al-shabaab iska xoreeyay idinka number 1 Soomaaliya dadka maaragtay al-shabaab iska xoreeyay waxyaalo badan oo maaragtay aad ku wanaagsantiina jiro waa idin mahadcelinayaa gabdho quruxsanna waa ka maaragtay way ka dhasheen reer Hiiraan heestii ugu maaragtay baladweyn idinka waa waxaas dhan marka ani hadda marka visionkeyga waxaa waa 2026 Soomaaliya oo safe ah iyo Muqdisho oo safe ah waxaan rabnaa inaan waddanka badbaadino diyaar ma tihiin waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan walaalkay deeq darajo igu casuumay waxaan kaga yimid Ohio Columbus waxaan u soo daraafgaray kaari 13 saacadood ayaan u soo socday waxaa farxad ii ah oo aan ku qanacsanahay waqtigeygii aan u soo bixiyey gabdhaha reer Hirshabeelle iyo wiilasha reer Hirshabeelle inaan arko caawa gadaashayda waxaa ku sawiran madaxweynihii mideeyay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe waxaa sawirkiisa ka hooseeya Yuusuf Axmed Hagar Dabageed
وصاحبكي أهوان لسه شقين مدة قبل كيران أنك لا شقي وحاكو سيحيقة سيهوصان وهلا إن أديركي لقمان حاج مركا إن أديركي إليه مركا إيريا كود دين شاير هالي هذا أنا أقول بلدوين أنكو دا شيء بلدوين وحكو صوبرتي بلدوين أنكو قرصدي بلدوين عرض دي كو دلاتي حيلك ugu horeeyay hiirana ka qabanay ilaahay idinkiisa hiir shabeelle waxaan jeclahay markaan ka soo gudbo hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa state-ka Soomaali ugu barwaaqada badan waa state-ka Soomaali ugu nabadda jecel waa state-ka Soomaalida wax uqdadahan lahayn dadkiisa iyo deegaankaaba walaalayaal waxa magaalada nala jooga caawa Minneapolis سفيرك جمهورية فدرالك الصومالية أمباستر دكتور داهر حسن عرب ونن ري هيران ونن ري بلدوين ونن ري هير شمال ما وقتهن ورهير شمال سفيرك الصومالية واشنطن إذن فدينو عاوة من نابلس إذن جو موقتين إذن كومرت إذن عاوة وهير شمال وبلدوين وحال كان جوغا كوحيجين كيسا نن ري جوهرة ونن شبلها دحا أيام مقالة يديله جوا حفلة دان عاو أنت ندين ما نكهر إستجا يانك صوت تغني سلانة يندين كجسدا ولا ليه لو حينك عصنا يا أنت يرد ماشي أجوكتان صور يا هذا المعنى ما سمينا يو هيران فتح هذا يا كجرا شبلها دح فتح هذا يا كجرا شباب برجع هيران حوق بالوغلو درري بيش صوص عطا قلبيتك هيران دقال باكا باللابانيا إنا دو ديار قرودان شبه الله دحي قلبيتك دقال باكا باللابانيا وإنا دو ديار قرودان شبه الله دحي مقالة دي جوهر دسمو انفرستراجدر مامولك أيوب باللابي وإنا كقيب قادنا دمانتين مدشان هاينو هاتو مدل هيران يشبه الله دحي أن لو إيجين ديغان كان سيقود أن أوه فكرنو وأنا مهسنتهن وجدد أنا وإمادن وفرح سنة هاي إن أنت نورهير شباب عاون أركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والسلام يا دمان مرتدى شرفت له أنا جو كهال لايو مجاعة دل يرد قبل كبنادر بنادر يهير شباب بنادر هدام مقشة وهير شباب هير شباب هدام مقشة وبنادر والله معمول أو حبيث دامن ولا لا مركو روح هل كان كسلام يا مدعوينا هير شباب علي جود لاوي مدعوينكو حكاينك يوسف دبجد يقدميها بارلمانك عبد الحكيم لقمان هير شباب ومعمولكو دقالها بدن معمولada ka jira gobolka wadanka Soomaaliya hirshabeelle waa dhul barwaaqo ah waxa hadda xilka ka haayo nimankii ugu mudnaa ee xilka hay lahay waaya aragnimo u dhiman ma jirto cali guudlaawe ma jirto waaya aragnimo u dhiman yuusuf dabageed aniga hambaliyada markii laga soo tago waxa halkan ka codsanayaa madaxda xilka hayso hirshabeelle uma baahna dhalinyarada inaad shaqo siiso hirshabeelle uma baahno dadkeeda inaad macaawino siiso hirshabeelle waxa ay u baahan tahay in loo dhiso wadooyin ay dadkooda dakhliga ay dhulkooda ka soo saartaan marsiistaan hirshabeelle waxay u baahan tahay nabad waxaan ka codsanayaa madaxda meesha ka taliso waxaa jira mararka qaar in qabiilada qaar colaadda soo naqnaqato dhowr jeer waxaan rabaa in laga shaqeeyo madaxda aan ka codsanaya kale waxay tahay weligay aniga inta aan noolaay ma maqal hirshabeelle dadkeeda baahay u dhimanayo waa maqlay maamulada kale oo baahay ka jirto macaawino loo fidinayo inta aan noolaay ma maqal baahay ka dhacdo dhulkaas marka hambali ayaan leeyahay
عوانا أصبحني همبليو بلشي حي همبليو ومالين بقرن بلوغي هيرشابيلي بيانكا ينوغوتي عوانا أصبحني همبليو بلشي حي همبليو بلشودا ولالا بري إلى قلبي بدأيو إلى بري الصباح قبأو بالعذاب الكنانة بالعذاب الكنانة بلشودا ولالا بري إلى قلبي بدأيو إلى بري الصباح قبأو بالعذاب الكنانة بالعذاب الكنانة بهذا عيد ماذا إيو بوليسكيو أسلوبكيو شرعيقنا بالمرين عشر ردي بحنيان بهذا عيد ماذا إيو بوليسكيو أسلوبكيو شرعيقنا بالمرين عشر ردي بحنيان تاريخ بالذهب الليبوك قرن وبرتي لقو يقين ايكا صبحين الكنا اقبلا الكنا اقبلا هيا تاريخ بالذهب الليبوك قرن وبرتي لقو يقين ايكا صبحين الكنا اقبلا الكنا اقبلا وكا كالي كالي صبو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل وكا 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 كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل هيا 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 كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل كالي كالي صبرو الشبيل عاقل in the house caawa waxaan halkan u joognaa inaan u dabaaldegno sanad guuradii Hirshabeelle marka mayba lahaa anoo Liibaan Xuseen oo runtii wakiilka Koonfur Galbeed gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee waqooyiga Mareykanka runtii eedeedaan ka faraxsana inaan xasiin kula qayb qaado mayba faday inaan may leeyahay hortiinsheena saaxiibayaalkay hal qof intii aan kuweera waxaan rabaa markaan u yeerana inaa sacab ii siisaan waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland walaalkay Shucayb ila soo dhaweeya waxaan rabaa inaad si sacab leh waxaan u maleynayaa tan waaba kici doontaan aan u maleynayaa haddaan sheege waa gudoomiyaheena haddaanu nahay ku-xigeenka midowga jaaliyadaha ahna gudoomiyaha Puntland Mulki Xuseen isla markaasna waxay tahay Mulki wakiilka Puntland u fadhiya Mareykanka waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan walaalkay ONLF runtii unahooba ana midowga jaaliyado mashal heraana ol i diirshawaana
markasta unu meelseena mayba may leeraay iska duubagna ini unu maaragnay xafladaha ku qiib galna ini unu taageerna ini unu may leeraay jaaliyado anas sheegna ya mar walba surugna isiigna diyaar maninga hidina mali fahangnaan malaye aniga anamaha ku jeeda reer Hirshabeelle aha ay ogolaadaasan ma reer Hirshabeelle afmaaya lanka dahowe makasaasan waa gartay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye mulki inay mataqaana ayadana ku soo dhaweyso gudoomiyaasha kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heer Hirshabeelle waxaan idin leeyahay hambalyo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda Puntland waxaan idinka wadaa hambalyo Siciid Cabdullaahi Dani iyo cabinetka heer Puntland oo dhan iyo bulshada heer Puntland halka haday ku nooshahay dacalada adduunka waxaan idin leeyahay hambalyo aniga kolley wakiilka dowladda Puntland ahay iyo kusimaha gudoomiyaha midowga jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa caawa bal inaan idin soo xasuusiyo heestii ahayd aniga kolley haddaan hiiraan maqlo waxaan soo xasuustaa baladweyne allahayow ka dhig beerta raaxada ilaahay waa idinka baryayaa nabad waarta ilaahay waxaa idinka baryaa horumar ilaahay waxaa idinka baryaa in aad noqotaan kuwii ka guulaysta cadowga Soomaali meel kastaba ku haysta annaga haddaan nahay heer Puntland waxaan nahay Hirshabeelle laba isku baahan mar walbana isgarab taagan markay wax idinku dhacaana idin garab taagan markii wax idin taabtaana idin soo istaaga marka hadda waxaan idin leenahay hambalyo horumarkiina waa horumarkeena guushiina waa guusheena waxaan idin rajaynaynaa dadkiina halkaan joogana gadaal inaa u fiirisaan dadkii gadaal joogay siiba haweenkan la hadlayaa waxaan rajaynayaa inaad isku tagtaan oo aad ka warqabtaan dhallaanka iyo hooyada waa waxyaalaha ugu badan ay dhibta soo gaarto bulsho markay dhibaato gaarto marka yaa la yareysanin wax kasta oo la qabto mar kastaba ha la xasuusto dalka in dib wax loogu cesho mar kastana ha la xasuusto iskuullada iyo hooyada iyo dhallaanka waa meesha bulshada ay ugu jilicsan tahay waana haweenka inay arrimaha wax ka qabtaan haddii aan halkaan joogno iskuguna tagno aadaa idiin salaamayaa waxaan idin leenahay hambalyo sanooyin badan oo kale oo waxaan idiin rajaynayaa horumar iyo barwaaqo iyo midnimo بسم الله وكفى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وشعيب شيخ علي أهنا قدوميها جالية جبلان دمان وان سلام يا بلشوينتا صوماليات كسو قيب قشة حفلة سنة قورة هيرشابيلة وحن لنا مامولك هيرشابيلة مامولا كم نغو إن شاء الله ميل برواقة صومالي ماشا وبرواقة سنبا قلت الله marka waxaan leenahay reer Hirshabeelle gacmaha isqabsada istaageera waxyaabaha madmadowga dhaxdiina jirana dhameeya biidmillaahi kariim annaga haddaan nahay jaaliyadaha Soomaaliyeedna dalka dhan waa dalka nagi meel walba waa aan joogno waa soo kaayamid maadaama hadda dawladda ay federaal noqotay baan u hadlaynaa mooyaane laakiin Soomaalinimada ayaa naga midaysan nagana go'an marka waxaan leenahay Hiiraan waxa ka dhashay madaxweynayaal badan sida dalka hore looga sheegay marka waa meel qani ah oo hodan ah oo aqoonta iyo beeraha iyo xoolaha hodan ku ah marka waxaan leenahay waraara oo barwaaqooba bidmillaahi kariim waxa kale oo halkan aan ka salaamayaa madaxweyneyga Axmed Maxamed Salaan oo islaam insha Allah dalka waxa ku soo foodle doorashooyin markay jiraan isqabqabsi fara badan iyo muddo kororsi iyo ayaa jira dhamaana maamul goboleedyada dhanna way ku soo food leedahay sida Jubbaland Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed allaha barakeeye Puntland mar dhow bay ka soo baxday hawshaas marka sidaa darteed waxaan leenahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada
dalka dastuur buu leeyahay horumar baan tigsanaynaa 32 sano ayaan burbur ku jirnay marka waxaan ka codsanaynaa maamul goboleedyada madaxweynayaasha iyo maamulka dawladda federaalka uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud si nidaamsan oo dastuurka waafaqsan in loo qabto doorashooyinka oo la iska daayo haddaan nahay qurba joogta waxaan nahay lafdhabarka bulshada dhaqaalaheeda iyo taageeradeeda nahay marka waxaan soo joodinaynaa in la qabto doorashooyin xalaala waqtigooda ku dhacaan dawladda federaalka iyo dhammaan maamul goboleedyada ha la iska joojiyo shaatiyada faraha badan ee la tolanaya siba weliba qaasatan waxaan halkan fariin ooga darayaa maamulkayga iyo madaxweyneyga axmed maxamed islaan in uu qabto doorasho loo dhan yahay baan ka codsanaynaa haddaan nahay bulshada qurba joogta Soomaaliyeed annagu dalka waa soo kaayimid waxaan leenahay axmed maxamed islaan dawladda federaalka la shaqee hana la qabto doorasho loo dhan yahay oo maartay dhammaan maamulka Jubbaland ay ka soo qayb galaan insha Allah aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaan bulshada ka soo qayb gashay caawa waxaan idin leenahay hambaliyo idin leenahay sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo barbaaro Allah idinku gaarsiiyo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta jawxo oo loo yaqaan ONLF waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u soo jeedinaya anigoo ku hadlaya magaca ururka ONLF iyo magacaygaba sanad guurada sideedaad ka soo wareegtay aasaaskii ama dhidibada u taagistii maamulka Hirshabeelle runtii oo dhibaato fara badan lala soo maray aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inay 8 sano ay dhisan yihiin oo ay ka shaqaynayaan nabadgelyada horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay mar walba inaan ka soo qayb galno innagoo ka soo kabannay civil warkii iyo burburkii iyo hambalaalaqii oo dawlad federaalana inoo dhisan tahay oo haysata legitimate iyo aqoonsi iyo maamullo federaal oo inagu leenahay oo shacabku doortaan aad iyo aad wax loogu farxo weeye sida Mareykanka oo kale inuu dhisannahay ummadda Soomaaliyeed waa hal calankaas mideeya shanta gees leh ee sida hadda la sheegay Cabdullaahi Ciise ugu horeeyay madaxweyne ka noqday aadan cadda ku xigay Dr. Cabdirashiid ama Sheekh Cabdirashiid uu ku xigay Ali Sharmarke ilaa iyo xasan sheekho hadda ugu dambeeya tacab badan baa la soo geliyay dhiig badan baa ku soo baxay waad ogtihiin SYL jigjiga lagu aasaasay shanta Soomaaliyeed baa ka qayb qaadatay North iyo South iyo Djibouti ba xorriyadeedii qaybo badan oo idinka maqanna weli waa jiraan oo gacanta gumaysiga ku jira oo idinka raba taakulo iyo garab istaag hadda idinku xorowdeen oo kibirteen oo dharagteen oo isdisheen dad baa weli baahan oon xor ahayn oo cadow haysta what about Maayse iyo Mooyaale iyo City waxa haysta miyaad qiyaasi kartaan dadka waxa weeye cadow baa haysta idinkaan ehel u ah waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waa hal shanta Soomaaliyeed waa la kala qaybiyay mooye waa hal dhul waa hal diin waa hal af waa hal dhaqan waxaa la rabaa inaynu inta xorta ana ilaalino wixii cadowna ka saara sida shabaabka dawladaha sheeyay iska saaro inta maqanna la raadiyo ummadda Soomaaliyeed oo confederation ah sida Mareykanka inaynu shidaalka la soo baxno oo aynu carabtan aad aragtay shalay inaga quudin jiray ee dheragtay carabtan Soomaali baa quudin jirtay Afrikaanka kalena ma bayna qeyrsan jirin marka sharafteen iyo karaamadeen inaan soo celino caruuraha dib u ceshano dadka waaweyn bugtada retire-ka dib u celino sidaynu ku celin lahayn baa la inaga rabaa waad ku mahadsantihiin inaad dadkiina taakulaysaan mar walba oo garab taagan tihiin nooc kastaba hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday biilis tahayba laakiin waxaan u baahanay inaanu shabaabkana iska saaro gacmahana la iswada qabsado calankaana aan wada ilaashano shanta geesle waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أمهات سنتين
anoo khaatuma waxaan leeyahay guddoomiyaha khaatumaha North America guul iyo gobonimo shir shabeelle guul halkan sida uu hadda u leeyahay Gani Soomaaliya waa lagu noqonayaa because petrolki waa la soo saaraya insha Allah dowladda Xasan Sheekhaana soo saaraysa runta idin sheegaya insha Allah taala waa noqonaynaa waxaan noqonaynaa imaaraadka oo kale waa haddana gumaysanaya si fiican ayaan uga rayn doonaa insha Allah taala guul iyo gobonimo hadalka idin kuma badinaya